Assalaamu calaykum saaxiibayaal, ku soo dhawaada meel kastoo joogtaan. China, laba mataano isku mid ah ayaa guursaday laba mataano isku mid ah, waxayna dhaleen mataano isku mid ah. Mid ka mid ah caleenta ugu adag adduunka waxay awood u leedahay inay qabato ama qaban karto amba hayn karto qof bani aadam ah. Waxay ku taalaa Victoria, Koonfurta Ameerika. Amiiradii Qaysar, astaantii quruxda iyo caqliga badnayd ee Bershiya Iran. 13 nin oo dhalinyaro ah ayaa isdilay kadib markii ay diiday askar Amerikaan ah oo akhrinaysa joornaal ay ku qoran tahay geerida Hitler 1945. Ciwaanka joornaalka ayaa qaatay page barkii. Dalxiisayaal caafimaad ah oo Chinese ah ayaa tegay Koonfurta Kuuriya si ay isku soo sameeyaan qalliin balaastik ah oo jaban, tayo sarana leh, ayaa dib ugu laabtay Isiri. Shiinaha soo noqoshadooda ayaa ku adkaatay sababo la xiriira sawiradooda baasaboorka ku yaala iyo wejiyadooda cusub oo islahayn dartood. 2000 oo sano geed jira oo ku yaala Koonfur Afrika oo loo yaqaan geedka nolosha. Sanadkii 1954, nin ayaa yimid garoonka diyaaradaha Tokyo ee dalka Japan. Waxa uu watay baasaboor ay soo saartay waddan lagu magacaabo Torii, taas oo aan jirin oo uu haysto fiisooyinka wadamada caalamka oo dhan. Waxaa la yidhi 1000 sano ayuu jiraa waddankiisu. Booliska ayaa ku xidhay qol ammaankiisu adag yahay. Markii dambe waa la waayay meel uu ka baxay. Khubaradu waxay yiraahdeen waxa uu ka yimid koon kale. Meesha ugu magaca dheer adduunka waxay ku taallaa New Zealand. Waxa uu dhererkiisu ka kooban yahay 85 xaraf. Nashqadeeyaha Yi Fengjin oo u dhalatay Taiwan ayaa muujinaysa qorigeeda ilmada, taas oo ururisay oo ay qaboojisay ilmada ka timaada si ay ugu celiso qofkii ilmada ka keenay. Labada 2010, dowladda Tokyo ee dalka Japan ayaa u tagtay ninka ugu da'da weyn si ay ugu hambalyeeyaan sanad guuradiisa 111aad. Waxay ugu tageen qalfoof meyd ah oo jiifa sariirta. Master Kato waxaa laga yaabaa inuu dhintay 30 sano ka hor, si ay sheegeen mas'uuliyiinta Japan. Iskuul Indonesia ku yaala waxa uu leeyahay maalin khaas ah marka hooyooyinka oo dhan lagu casuumo iskuulka si carruurtoodu ay cagaha ugu meedhaan amba ugu nadiifiyaan si ay u bartaan casharka ah jannadu waxay taallaa hooyooyinka hoostooda. Marka aad dhammayso PhD dalka Finland, sidoo kale waxaa lagu siinayaa amba lagu darayaa koofiyadii SF. Dhakhtar xoolaha ah oo Australian ah
ayaa qalliin 45 daqiiqo ah ku sameeyay kalluun loo yaqaan goldfish, magaciisana la yiraahdo George. Mulkiilayaasha kalluunka aad ayay ugu xunaayeen, sidaa darteed waxay bixiyeen lacag si madaxa buro looga soo saaro. Selwa Hussein waa gabadh u dhalatay Britain. Waa haweeneyda kaliya ee adduunka aan lahayn wadne. Wadnaheeda waxay ku qaadataa shandad amba boorso, wayna la dhaqaaqdaa amba la socotaa, waana wadna macmal ah. Martin Leolo waxaa loo yaqaan gumaystaha aadanaha. Wuxuu ku dhashay awood ah inuu madaxiisa wareejin karo amba rogi karo 180 digrii sida gumaysta. Horaantii 1900 damdamisku ayaa biyo isku furi jiray aan dabku ugu soo dhawaan. Wadamada Kuuba iyo Waqooyiga Korea lagama isticmaalo cabitaanka Coca-Cola, sidoo kale lagama iibiyo labana iibsado.